Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. Kitchada cuntada macaan Soomaalida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin wada salaamay khayaaray ku soo dhawaada Muqdisho Cooking. Maanta waxaan noo sameynayaa chicken iyo arabakhi ama galey, qof walba siduu u yaqaano. Chickenka waxa weeye frozen talagadan geliyay, marka waanigii hore idinku sheegayaan idin lahaa weegan maxaa dhacaa markaan soo iibsaday xawaashidiisa mariyaa talagadan geliya, yacni hawl yari baan ka dhigtaa. xawaashkiisa wax walba waan u dhammaystiray, waana mariyay. iminkana waxaan ku riday digsigaasaan aluminium afka kaga xidhay. aluminiumkaan afka kaga xidhay ayaa hurinaya. iminkana waad aragtaan inuu soo baxay maasha allah. wuu inoo bislaaday chickenkeeni. halkaa waxaa yaala hayl, filfil iyo qorfe iyo xawaash kaari iyo milix. intaasna waxaan ku dalacayaa galeyda iyo basashaas. toontaas dib baan ka sameyn doonaa insha allah. waxaan ku sameynayaa dib idinka tusi doona. digsiga iminka waxaan ku ridayaa chickenka. in yaroo subagaan horta ku ridayaa marka hore. subagaas ayaan waxaan ku shiilayaa basasha. basashu markay ii yara shiilanto ee ii casaato ayaan ka gurayaa. maxaa la yiraahdaa si aan hadhowto dusha uga daro sidii bariiskii surbiyaanka ahaayoo kale. haddana waxaan ku xijiyey sabiibtii baan iminka shiilay. bacdal sabiibta insha allah waxaan ku darayaa chickenkan hoosta u dhigayaa. kabacdi galeydaan ku darayaa. iminka chickenkii ayaan ku daray. chickenkii ayaan iminka ku daray. iminkana waxaan rabaa inaan ku daro galeyda waan soo kariyey. aada ayayna u jilicsan tahay. caruurta yarar baa cuni karta. haddaad aada u jilcisid yay kaa adkaanin. iminka digsigaas waa digsigii aan ku kariyey chickenka, because chickenka waxaa ka baxay subag fara badan. saliidii baan iska dhowray. intii yareedee maraqee soo hadhay dhanaanaydna waxaan isiri galeydii ha kugu macaanaato. galeydii ayaan dusha kaga daray. iminka waxaan ku daray haddana sabiibtii. waxaan ku xijinayaa basasha. aluminiumkaan ku xirayaa. markaa daboolkiisaan saarayaa. muddo waxaan u deynayaa adiga 10 minute 10 daqiiqo ayaan u deynayaa si uu isugu maxaa la yiraahdaa kor ilaa hoos isu gaadho. chickenka hoos ku jiraan oo uu casaado. intii kale ee chickenka ay noo hadhay oo aan ka reebay chickenkan waxaan gelinayaa ofinka. waxaan ku gurayaa saxanka ofinka la geliyaan ku gurayaa si uu maxaa la yiraahdaa isaga laftirkiisa usoo shiilmo. waxaan gelinayaa ofinkan gelinayaa. iminka waxaan sameynayaa galeydii ayaan waxaan ku gurayaa birta yare halkaa taala. birtaa inta badan waxay ii qabataa cuntada kuleylka ii haysa sidii kululeysadii oo kale. iminkana iyadan ku gurayaa insha allah. markaan iminka iyada ku guro allahuma salli calaa maxamed, cuntadeeni ayaan inoo soo diyaarinayaa. cuntada mar walba waxaan idinkala talinayaa bariiska iyo baastada haddii la cunayo xataa inaan qudrada iyo waxyaabaha lagu dardaraya laga ilaawin. chickenkii wuu inooga soo baxay ofinka. iminka sixnigaas waxaan ku soo riday waa xumus, waa waxa weeyaan shigni. chickenkii oo kii lagu dhex kariyey galeyda ah iyo kii kale oo ofinka la geliyey. saladkii, sabaayadii, allahuma salli calaa maxamed, alaab kale oo laysku sameeyey iyadana oo maxaa la yirahdaa lagu cuno sida khubuska oo kale, saladka oo kale. insha allah taasna dib ayaan kasoo sameynayaa. xumuskana insha allah video kalean idinka soo sameynayaa, because videogu dheeraanaya. videogu inuu dheeraadana waa laga qurux badan yahay, waana ku caajisaysaa. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa bahda Muqdisho Cooking oo idin leh Soomaaliya ha noolaato.